رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aan kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee ka cusub qodobada caawa barnaamijka idinkugu haynana waxaa kamid ah ma aqbali doonaa qamani kulan uu la yeesho Trump waa intee filashada heshiis lagu gaari karo ee kulanka soo socda ee wadaxaajoodada Tehran iyo Washington maxay tahay shuruudda miiska u saaran Iran si ay uga tanaasusho qaar ka mid ah barnaamijkeeda nuclearka waa maxayse cabsida ugu weyn ee Iiraaniyiintu ay ka qabaan Trump haddii heshiis ay la galaan macluumaad xasaasi ah ayaan idin haynaa barnaamijka waxaan kaloon ku eegaynaa caawa muxuu Ruushku qatar ugu arkaa keenista ciidamada NATO meel u dhow xadkiisa waa maxay digniinta uu ka bixiyay diyaar garowga military ay wadaan qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka isbahaysiga maxayse tahay halista amniga qaranka ee Moscow oo ay maleegayaan dalalka Scandinavian-ka la isku yiraahdo ee qaaradda Yurub oo ku saabsan cabsidan ay Ruushka iyo reer galbeedku kala qabaan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa musaafiriinta dadka aan sharciyada haysan ee Mareykanka oo si qarsoodi ah maamulka Trump u sii dardargelinayo madaba inuu jiro isafgarad u dhaxeeya Mareykanka iyo dalalka Afrika qaarkood oo dadka la geynayo safarkii dhawaan xagee ama dalkee la geeyay maxayse ahaayeen ogolaanshaha maxkamadeed ee dadka la musaafiriyay qaarkood ay haysteen faahfaahin ayaan iyana idinkaga haynaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka caawa soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan aynu ku hormarnay ee caawa sheekada ugu horeysa ee barnaamijka maamulka Trump ayaa si qarsoodi ah waxa uu filinayaa amaradii madaxweynaha kuwaasi uu farayay ee musaafiriinta dhammaan muhaajiriinta ku sugan wadankaasi Mareykanka kuwaasi oo aan haysan sharciga muwaadinimo ee dalkaasi wargeyska The New York Times ayaa daabacay warbixin xasaasi ah oo sheegaysa in maamulka madaxweyne Donald Trump uu si qarsoodi ah ilaa 9 qof ugu musaafiriyay dalka dhaca bartamaha qaaradda Afrika ee Cameroon inkastoo qaar ka mid ah dadkaasi ay haysteen ruqsadaha ilaalinta maxkamadaha Mareykanka ee ka hortagaya filinta tallaabadaasi isla markaana midkoodna uusan ka soo jeedin dalka Cameroon ee la sheegay in la geeyay iyadoo laga soo xiganayo dukumeenti dawladeed iyo qareenada dadka la musaafiriyay qaar ka mid ah ragga iyo dumarka loo diray wadanka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika ee Cameroon duulimaad ka baxay magaalada Alexandria ee gobolka Louisiana 14kii bishii Janaayo ma aysan ogeyn halka loo waday dadkaasi ilaa la saaray duulimaad ay maamusho wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka iyagoo oo gacmaha uga xiran tahay silsilado wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka wasaaradaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Cameroon kama aysan jawaabin codsiyo faalla ah oo ka yimid Reuters kuwaasi oo ku saabsanaa xogta dadka la musaafiriyay midkoodna maamulka Trump ma uusan shaacin wax heshiis ah oo Cameroon ay ku ogolaatay inay qaadato dadkaasi ama ay qaabisho dadka laga soo musaafirinayo dalalka kale tan iyo markii Trump uu ku soo laabtay xafiiska maamulkiisu waxa uu ka howlanaa adkeynta tallaabooyinka ka dhanka dadka muhaajiriinta ah isagoo kordhiyay heerarka musaafiriinta tallaabadaasi oo dhalinaysay su'aalaha sidoo kale walaac ku baahay bulshooyinka muhaajiriinta ee gudaha Mareykanka bishii Janaayo ee sanadii 2025 maamulka Trump waxa uu siiyay hay'adaha federaalka awood ballaaran oo ay ku dardargelinayaan dadaalada lagu soo musaafirinayo muhaajiriinta dalka ku sugan goobo kale lagu geenayo kadib amarro madaxweyne oo daarana xaalad degdeg ah oo qaran oo ka jirtay xadka koonfureed ee Mareykanka waxaana hay'adda ilaalinta xuduudaha Mareykanka ay sidoo kale shaacisay joojinta abka CBP-da loo yaqaano oo ogolaanaya muhaajiriintu inay si sharci ah dalka Mareykanka ku soo galaan waaga markan xagga Yurub aynu u yaacno Ruushka ayaa wadnaha farta ku haya isagoo oo walaac xoogan ka muujinaya dadaalada lagu xoojinayo awoodaha military oo ay wadaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa dhaca waqooyiga qaaradda Yurub ee Scandinavian-ka loo yaqaano waxaana dalalkaasi qaarkood ay xad toos ah la wadaagaan Ruushka Moscow ayaa ka digtay diyaar garowga military ay wadaan dowladaha Norway, Sweden iyo dalal kale oo ka tirsan isbahaysiga NATO kuwaasi oo loo arko halis toos ah oo ku wajahan amniga qaranka ee Ruushka taasi oo ku qasbaysa Moscow inay qaado tallaabooyin military iyo xeelado kale oo jawaab ah
sida uu sheegay safiirka ruushka u fadhiya Oslo Nikolai Korjonov waraysi uu ku siiyey wakaalada wararka ee Sputnik. Korjonov waxa uu yiri Oslo, Stockholm iyo Helsinki waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan kordhinta dhaqdhaqaaqa militari iyagoo horumarinaya wadooyin gaadiid iyo sidoo kale saadka ah oo ka yimaada galbeedka ilaa bari, sidoo kalena ay isticmaalaan xuduudaha ka gudba saldhigyada iyo kaabayaasha kale ee militari. isagoo xusay in diyaargarowyadan iyo kuwo kale ee militari ay wadaan dalalka reer galbeedka ay ku midaysan isbahaysiga NATO ee garabka waqooyi, kuwaasi oo si cad loola jeedo ruushka ayna kordhinayaan xiisada islamarkaana ay halistoosa ku yihiin amniga qaranka ee ruushka, taasi oo ku qasbaysa Moscow inay qaado tallaabooyin militari iyo xeelado ka hortag ah. sanadihii lasoo dhaafay ruushku waxa uu ka digayay dhaqdhaqaaqyada aan horey loo arag iyo kordhinta joogitaanka ciidamada isbahaysiga NATO ee ku dhow xuduudihiisa galbeedka. Kremlinka ayaa sheegay in ruushka uusan cidina u hanjabin, balse uusan iska indhatiri doonin tallaabooyinka khatarta ku noqon kara danihiisa ee dhinacyadan qaadayaan. dalalka ku midaysan isbahaysiga NATO ayaa qorsheynaya go'doomin badeed oo qayb ahaan ama gebi ahaanba loogu sameynayo ruushka, sida uu sheegay safiirka ruushka u fadhiya Norway. safiirkan ayaa sheegay in xubnaha NATO oo ay ku jirto Norway ay howlgalada ilaalada Baltiga bariga iyo ilaalada Arctiga ay dhab ahaantii gobolka Baltiga iyo Arctiga u rogeen nidaam xero ciidan, islamarkaana ay xadidayaan xorriyadda maraakiibta ee si ka hor imaanaysa sharciyada caalamiga ah. sanadihii lasoo dhaafay ruushku waxa uu ka digayay dhaqdhaqaaqyada aan horey loo arag iyo kordhinta ciidamada NATO ee ku dhow xuduudihiisa galbeed. Kremlinka ayaana marar badan horey u cadeeyay in ruushka uusan cidina u hanjabaynin, uguna hanjabaynin duulaan, islamarkaana uusan weerar ku ahayn, balse uusan gacmaha ka laaban doonin tallaabooyinka kororka militari ah ee khatarta ku noqon kara masiirkiisa iyo amniga qarankiisa. waa hagaag daawadayaal, waxay noo soo socotaa sheekada ama warbixinta ku aadan Ali Khamenei aqbali doonaa kulan uu la yeesho Trump iyo sidoo kale cabsida Iiraaniyiintu ay ka qabaan Trump laftiisa haddii ay heshiis la galaan. balse intaynu u gelin warbixintaasi aynu marka hore ku hakano daawadayaal habeen wanaagsan. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka maxaa cusub oo si toos ah habeennimadan idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo weliba Telegramka, idinkoo warbixino qoraalla ah, warar degdeg ah iyo macluumaadyo kale ka heli kara oo ka aqrisan kara barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa markana aynu u gudubno ama u talaabno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka. ma dhici doontaa ama ma suurtagalba in la arko hogaamiyaha Iiraan Ali Khamenei iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo si toos ah isku hor fadhiya calashaan kulan foolka fool ah wada yeesha? falanqeeyaasha lafagura siyaasadaha caalamka oo ka qaybgeliyay dood uu qabtay telefishinka Al Jazeera ayaa meesha ka saaray gebi ahaanba suurtagalnimada kulan toos ah oo dhex mari kara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei sababo badan aawadood, gaar ahaana nooca xiriir ee u dhexeeya labada dal. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa hore u sheegay in madaxweynaha uu diyaar u yahay in uu la kulmo hogaamiyaha Iiraan, isagoo intaasi ku daray waxaan si buuxda ugu kalsoonahay in haddii Khamenei uu yiraahdo waxaan rabaa inaan berri la kulmo madaxweyne Trump uu la kulmi doono. sida uu sheegay Kenneth Kurtzman oo ah cilmi-baare ku takhasusay daraasaadka istiraatiijiyadda iyo amniga caalamiga ah, Rubio laftiisa uu ogyahay in kulan dhex mara ee Trump iyo Khamenei uusan dhici doonin, sababtoo ah madaxweynaha Mareykanku ma aadi doono Tehran, hogaamiyaha Iiraanna ma aadi doono Washington. ku darso sidoo kalena ma qaabilo hogaamiyaasha Mareykanka. dhankiisa Xasan Axmediyan oo ah professor ku takhasusay daraasaadka bariga dhexe kana tirsan jaamacadda Tehran ayaa xaqiijiyay in hadalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka fog yahay xaqiiqada, islamarkaana aan si dhab ah loo qaadan. waxaana uu tilmaamay in hogaamiyaha sare uusan la kulmi doonin Trump marnaba, sida uu sheegay afhayeenka falal xun uu ku sameeyey Iiraan, sidoo kalena labada dhinacba aysan gaarin xitaa iftiin yar oo rajo ah oo ku saabsan wadaxaajoodada ka hor inta aan loo boodin kulan hogaamiyaal heer sare ah la qaabiyo. Xusni Ubeyd oo ah professor isna ku takhasusay xiriirka caalamiga ah
kana tirsan jaamacadda Geneva ayaa aaminsan in hadalka Rubio uusan ahayn mid iska yimid balse uu ku soo beegmay ka hor wadaxaajoodida soo socda ee magaalada Geneva dalka Switzerland ka dhici doona iyo kadib hadalkii hore ee Trump ee ku saabsanaa isbedel nidaam oo ka dhaca Iran. Tehran marnaba kuma kalsoona Trump. Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in wadaxaajoodida soo socda ee Geneva ee u dhexeeya Washington iyo Tehran aysan sahlanayn maadaama danta isbedelka nidaamka Iran xal kale oo bedel ah. dhanka kale Ahmadiyan oo ahaa martida Iran ee dooda ka qayb qaadan ee qaybta ka ahaa waxa uu ka hadlay tanaasulaad la gaari karo waxana uu sheegay in fikradaha la falanqeynayo ay siinayaan Trump waxa uu doonayay isla markaana ay tahay in Iran ay hesho waxa ay rabto iyana balse dhibaatada hortaala Iiraaniyiinta waa maadaama aysan ku kalsooneyn madaxweynaha Mareykanka isla markaana aysan hubin in uu fulin doono ballanqaadkiisa haddii ay tanaasul sameeyaan oo heshiis ay la gaaraan sida uu sheegay Ahmadiyan. falanqeeyaha kale ee Cubayd ayaa aaminsan in wadaxaajoodida Geneva ay yihiin kuwo muhiim ah oo xasaasi ah isla markaana dhamaystiraya wadaxaajoodidii Masqad waxana uu sheegay in Iran ay tijaabin karto dhabaahashaha Mareykanka iyo reer galbeedka ee ku saabsan qaadista cunaqabataynta iyadoo oo hakinaysa arrinta kobcinta uraniumka muddo 3 sano ah walow uusan yaraysan muhiimadda wadaxaajoodida u dhexeeya Washington iyo Tehran isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo cadaadis militari uu adeegsado wadaxaajoodida balse Trump mar waliba waxa uu sheegayaa in xal diblomaasiyadeed uu yahay doorashada ugu fiican ee lagu xallin karo xiisadan ka aloolsan bariga dhexe ee Mareykanku qaybta ka yahay. وهجاج داوديال جودهم بوحة intaasi ku eg barnaamijkii maxaa cusub oo aynu ku eegeynay dhacdooyinkii ugu dambeeyay sidoo kale waxyaabo kale ee waaweyn ee dunida ka cusub si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda ku soo biir tani intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas